Xaafadda Odweyne oo ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir 48 saacadood ee la soo dhaafay waxaa ka taagneyd xaalad cakiran, taasi oo qasabtay in dadka deegaanka isku soo bax ballaaran ay sameeyeen kaga hortagaan ciidamada dowladda oo la amray in ay soo burburiyaan gebi ahaanba guryo halkaasi ku yaala iyagoo dadka deegaankuna ay ka soo horjeesteen arrinkaasi. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaanahanba waday burburinta guryo lagu sheegay ama dhulal ay dowladdu u aaneynayso inay yihiin dhulal danguud ah oo la burburinayay bilihii iyo baryihii la soo dhaafay. Dadka degan xaafadda Odweyne ayaa iska-horistaag ku sameeyey ciidamo watay cagaf islamarkaana doonayay inay burburiyaan xaafado door ah ku yaala degmada Daynile, gaar ahaan deegaanka Odweyne oo ah deegaan istiraatiiji ah islamarkaana ee muddo qarniyaal ay deganaayeen dadka deegaanka iyagoo si weyn uga soo horjeestay tallaabada ay dowladdu qaaday. Dad badan oo shacab ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka digeen inay dowladdu markaa tallaabo u qaado inay burburiso guryahooda, islamarkaana waxa ay sheegeen in haddii dowladdu ay qaado tillaabada ku aadan in ay burburiso dhulkooda ay samayn doonaan waxyaabo liddi ku ah amniga, islamarkaana ay gacanta ula tegi doonaan laamaha ammaanka ee ku howlan in ay burburiyaan islamarkaana ay barakiciyaan shacabka ku dhaqan xaafadda Odweyne ee degmada Daynile. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xaafaddaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa si cara leh uga hadlay arrinkan oo ay ku tilmaameen in ganacsato deegaanka ka soo jeeda oo ay dowladdu wakiilatay ay burburinayaan guryahooda si markaa ay ula wareegto ganacsato. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa bilihii iyo muddooyinka u dambeeyey lagu eedeynayay in ay burburinayso dhulal danguud ah islamarkaana ay ku wareejinayso ganacsato si ay kaga faa'iido lacago waali ah, sida ay wararku sheegayaanna ay dowladdu doonayso inay kaga macaashto dhaqaalahaasi arrimaha doorashada. Warar aan la hubin ayaa waxa ay markaasi sheegayaan in ciidamada dowladda amar loo siiyey in ay gebi ahaanba burburiyaan xaafaddaasi 12 saacadood ee la soo socda, walow dadka deegaanka ay markaasi isdifaacayaan islamarkaana ay u hubguranayaan sidii ay u difaaci lahaayeen hantidooda iyo dhulalkooda sida ay u sheegeen warbaahinta.